idaacadda alcarabi waxaan sii waraysi ballaaran oo ku saabsan siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya, xiriirka gobolka, xiriirka dalalka carabta, xiriirka adduunka, saameynta khilaafka khaliijku lagu sameeyey, siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya meeshay marayso hadda. waxaasoo dhan ayaan ka hadlay. marka qoladan dekedaha Dubai sheekadaasay qayb ka ahayd oo waxbaa la iga weydiiyey. anna waxaan sheegay keliya inay qoladaasi ay meel ka dhac ku sameeyeen qarannimadayada iyo midnimada dalkayagana ay khatar ay ku yihiin. hadalkan ama arrinka DP World horaa uga hadasheen, baarlamaanka la mariyey, muddo badan baa hadalhayntiisu socotay, waa laga soo gudbay, muddaa laga joogaa. idinku inaa mar walba hadal haysaan maxay ka dhiganta? waana sheeko saa sheegtay waa hore dhammaatay, laakiin tvgii wareysanayey ayaa iga wareysanayay xiriirka annaga iyo imaaraadku aan leenahay, taasoo aan ku sheegay inuu yahay xiriir taariikhi ah, hadda sidii laga filayay uusan ahayn oo sidaanu kasii fiicnaan karo. markan aad leedahay waxaanu sheegnay in meelka dhac imaaraadku ku sameeyey midnimadii ama jiritaankii Soomaaliya oo aad warbaahinta ka hadal haysaan, maxaa u mari weydeen wadooyinka diblomaasiyadeed oo imaaraadku la xidhiidhi weydeen oo cabashadiina iyaga ugu gudbin weydeen ama u qaadi weydeen tallaabo dowladnimo? diblomaasiga waan marsiinay, dalal baan isku dayay inay dhex galaan. markii ugu horeyso aanu damacnay inaanu tilmaano khatarta ay nagu leeyihiin sharikadaas dekedaha Dubai, Sacuudiga iyo ayaa nagu yiri annaga dhex galayna. sidoo kale dalal kaleeto waa yeelay, imaaraadka waa la hadalay marar badan. marka maray dari wixii loo baahnaayo oo dhan, laakiin sharikadaasi iyadoo nala tashan ayay damacday inay dalka iyaga iska maamulato, annaguna waa diidnay. haddii hawshaa iyo DP World jiritaankeeda iyo la dagaalankeedu uu dhab idinka yahay, sharci baa jiray ama qaraar baa jiray baarlamaanka la mariyo ay ku diideen, madaxweynuhu la yaala, maxaa u saxiixi weydeen oo loo dhaqan gelin waayay? dariiq diblomaasiyadeed aan weli maraynaa, weli waxaan ka rajo qabnaa. baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo dowladda Soomaalida oo dhan waxay ka rajo qabaan inay dalkan saaxiibka nahay oo imaaraadku ay gartaan khaladka ay BW ay samaysay. marka weli kama aanaan rajo dhigin dariiqii diblomaasiyadda. Somaliland wada hadallaa idiin socday, iminkana aad u ballansantihiin. hadallada noocana ee warbaahinta idinku aad marinaysaan ee ay ku jirto in DP World ay sharci darro ku joogto halkaas oo badanaa dhalisa walaac bulshada Somalilandna ay uga falcelisay iminka si adag, miyaanay kala fogaansho keenayn oo wada hadalladii hawsha ay wadanaanay caqabad ku ahayn? waxa ma yeelayso. Somaliland iyo DP waa laba wax oo kala duwan. markaad leedahay Somaliland iyo DP World waa kala labo, dadka Somaliland iyo madaxdooda badankooda waxay u arkaan in DP World ay tahay maalgelin deegaankoodii lagu sameeyey wax ka faa'iidayaan. marka idinku leedihiin DP World khalad bay samaysay, soo ma arkayaan inaad maalgelinta u diidan tihiin, nacaybna arrinkaas abuuri maayo? may hadda annagu uma diidanin maalgashi iyo horumar Somaliland, balse waa soo dhaweynaynaa, waa dhiirigelinaynaa. marka DP World iyada maxaa ku diidantihiin? may dariiqa ay mareen iyo sida u mareen baan ka doodaynaa, maahine maalgashiga Somaliland annagaa dhiirigelinayna oo soo dhaweynayna. waa dal Soomaaliyeed, dad Soomaaliyeed, horumarkooda iyo wanaagooda Soomaali horumar iyo wanaag u yahay. sheekada tani waa sheeko salka ku haysa khilaafka khaliijka iyo mowqifka dowladda Soomaaliya ee ka qaadatay, oo ay qoladaasi isku dayeen inay maaragtay nagu xumeeyaan, inay isku dayaan inay dadka Soomaaliyeed xataa sii kala fogeeyaan. hawsha wada hadallada ee idinka iyo Somaliland hore waxaa uga soo baxay inaan arrimaha maalgashiga la siyaasaday, miyaan qodobka ficilaadkiinani uusan lid ku ahayn imika? kuma aha. annakay waajibka iyagu nahay inaan dalka iyaga u raadino maalgashi, laakiin annaga iyo imaaraadka baa isku hayna inaanu is ixtiraamno, dowladnimada iyo qarannimada ixtiraamno. dhowr mar ayaan hadda ku hor sheegnay, haddana adiga waan kuu sheegay, waan ku celinaya.